sidaad u seexanaysaan buu nabigu leeyahay kaco ilaahay xasuusta saacada qiyaamada soo dhow dadkii magaalada ku noolaa hadii nabi maxamed uu la dhaxmarayay erayadaas uu lahaa kaco ilaahay xasuusta suurtii baa dhici doonto qiyaamadii baa dhow oo malagii baa suurta afuufaya aakhirana qofka bini aadamku waxa ka baqa waa dunuubtiisa waa dambigaagina waa laga dhaafay rasuulku marka Allah inoo dambi dhaafo qofku markuu dhintana dhimashada maxaa ku dhex jira su'aashii qabriga ku dhex jirta oo haddaad hindhisotana uu ku yiraahdo war xaggaad u jeeso corona jira la yidhi maxaad منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وكيلها لها عيدا سانيغا أبورني يدون بان هدنا نقول عليني دونا بردن بان يدا نيغا سو دحساري دونا با إلهي يري ملك إسرافيل عليه السلام مالك يلا أبوري إلى جوغدنا وحال يري لغاها انتو لك لبحي فورنكو بيقبوغو أفوفيين أفو قشدي با يري وحاونا سوغيا إلهي أمر كيسا كليا بس وملك أحاديث تقاركود أي شيء يسا لبدي ساحر رباد شمبرك حربت ألكا كدولة إلى إنتا كلا وحو الدولة يعطو دباتا سنة قيلدي سو كليا أيا خلائق دورنا لوضا ديمان اللي أرقق حيان وحاونا سوغيا إذن كإلهي قورما لغو أورن دونا أفوف لأنه يساقنا مركزو فورنت أفوفي دونا ونفق في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون marka الراجفة وتنهر ويان خلقه دن كن حنيس خلائقه قلوبته قلقليس hadana waxa ku xigta buu nabigu عليه الصلاة والسلام te suurta labaadna waxa weeyaan waa tadbacsiga qiyaamaha khalaaiqda la soo wada bixi doonaan sidaad u seexanaysaan buu nabigu leeyahay kaco ilaahay xasuusta saacada qiyaamada soo dhowey jaa al-maut wa bima fihi ba nabigu waxa kale oo yimiday geeridii dhimashadiina way timiday oo laba qiyaamo ayaa la sheegay qiyaamo weyn iyo qiyaamo yar qiyaamaha weyn waxa weeyaan waa saacada suurta weeyaan qiyaamaha yarna waxa weeyaan waa ajashiisa qof walba markay ku timaado qiyaamihiisa ba kacay marka nabigeena عليه الصلاة والسلام oo Madiinada al-Munawwara jooga oo magaalada Madiinana asxaabu Muhammad oo dhan ay wada joogaan hadii nabi Muhammad uu u baahday inuu dhex jawlayo ilaado dadoo kaco ilaahay xasuusta وساعد قيامته iyo suurta iyo geerida iyo nolosha dambe aakhirada uu xasuusiyay hadii magaaladii Madiina zamankii nabiga dadkii muuminiinta ahaayeen ku noolaa ay mudaakaradaas iyo baraarujinta ay ka maarmi waayeen inakoo zamankan maanta joognana ka warrama intaan u baahanahay markaas in mar walba ilaahay leena xasuusiyo zamankeenan qaflada ayaa badan jahliga ayaa badan معاصده ayaa badan fitanta ayaa badatay ya isyaanka ayaa bato meel walba ilaahay baa lagu caasanaya zamankoogina waxay ahayd magaalada Madiina magaalada dadka ku nool ay ilaahay amarkiisa u wada hoggaansameen oo sunnadii nabi maxamed ay ku wada dhaqmayaan sallallahu alayhi wasallam dadkii magaalada ku noolaa hadii nabi maxamed uu la dhaxmarayay erayadaas uu lahaa kaco ilaahay xasuusta suurtii baa dhici doonto qiyaamadii baa dhow oo malagii baa suurta afuufaya oo haddana khalqiga oo dhan baa argagaxi doona haddana khalqiga oo dhan baa wada dhimani doona qofku markuu dhintana dhimashada maxaa ku dhex jira su'aashii qabriga ku dhex jirta noloshii qabriga ku jirta cadaabul qabrigii baa ka dambeeya haddana jidkii siraad baa ku xiga bankii qiyaamaha haddana loo soo bixi doona ilaahay baa la surtaagi doona taasa marka nabigeenu dadka ku baraarujinayay sallallahu alayhi wasallam saxaabiga Ubay ibn Ka'b baa hadloo yiri yaa rasuulallah markaan ilaahay anigu aan baryaayo salligaaga haddaan ducadeyda afar u qaybiyo qayb aan ka dhiga bal ka waran markaa buu nabigu waa khayr haddaad ka ziyaadisaa kaaga khayr badan buu nabigu ku yiri haddaad ka ziyaadisana waa khayruun
markaa buu yidhi ka waran haddii aan ka dhiga salligaaga kala badh oo ducadii aan ducaysanayn ilaahay aan baryaayey kala badh haddaan adiga kugu salliyana bal ka waran inta kalena anna xaajadeeda ilaahay aan weydiisto markaa buu nebigu yihi waa khayr haddaad ka sii ziyaadisana waa khayr buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam haddana markaa buu yidhi ducadaydii markaan u qaybiyey 3 qaybood 2 qayboodna adigaan kugu sallin qaybna maaragtaane anigana baahideedan ilaahay u sheeganteeda ka waran markaa buu nebigu yihi waa khayr haddaad ka sii ziyaadisana waa khayrun baa nebigu yihi sal alla alay wasalam markaa buu yihi yaa rasuula allah haddii marba salligaagii haddii la badiyaba khayrun lasii dhexgalaayo baahidaydii dhannayd een ilaahay u sheeganayey waxaan ku soo koobayaa buu yihi salligaagaba adiguma kugu sallinba markaa buu nebigu yihi idan tukfaa hamuka wayukfaru laka danbuka buu yihi haddaad aniga igu sallidid hamigaagi wixii adduunka aad muraad ka lahayd ee walwalgelinayeed ku haminaysay waad heshay dembigaagina waa lagu dhaafay buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiis kale waa kii nebigu lahaa man shagalahu alqur'aanu can dikri ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه بالنبي عليه الصلاة والسلام لكن قرآن أخرسك كن مشغولة بريدي ذكرك كم مشغولة قرآن كقراءة ديسة إلهي وكيلها كوا إبريا يوحن إياك آنسين وحكفل لبضم عن إساق السياب إلهي لكاس quraanka uu akhrinaya sooma quraanka uu akhrinaya baahidiisa lagu daboolaya nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam salligiisii uu badiyay soomaha muraadku adduunyada lahaayo dhan baa ilaahay u daboolaya xaajadeen ayaa dabooli kara ilaahay baa dabooli kara laakiin taas yaqiin bay u baahan tahay kalsooni inaan yaqiinsanaa loo baahan yahay saxaabada rasuulku khabarka nabigu uu sheego yaqiin bay u qaadanayeen haddaad ducadaadii dhannayd halkaa intood iska dhigto salligayga unaad ku soo koobta buu nebigu ku yidhi wixii adduunkan had iyo jeer mar walba aad ku haminaysa inaad hesho waad hesho waa lagu siiyey buu nebigu ku yidhi aakhirana qofka bini aadamka waxuu ka baqaa waa dunuubtiisa waa dembi dembigaagina waa lagaa dhaafay buu rasuulku yidhi marka allah inoo dembi dhaafo waa labada shay ee qofku adduunka uu dhib leeyahay adduunkanna wuxuu u leeyahay hami aakhirana wuxuu qofku maaragtaane uu leeyahay waa dembi aakhira waxa kaliya qofku ka baqa waa dambigiisa adduunkana qofku wuxuu qalbigiisa ku hayaa xaajo uu leeyahay oo cid u qumisa ayuu raadinayaa dib haysata dibtaana cid ka fayduu rabaa qofkaas nin walba dib baa haysata maanta nin walba xaajo ayuu leeyahay nin la baahi maaha anigu baahi ii gaar aan leeyahay kan baahi gaar uu leeyahay aduu baahi gaar aad leedahay laakiin ka baahida nin walba ku jirta oge ka warhaya waayo ilaahay baa baahidaada ku dabooli markaas marka ilaahay taacadiisa waxaan u baahannahay inaan ku qaadanno yaqiin waana farqiga u dhaxeeya muslimiinta maanta adduunyada joogta baa la yidhi iyo muslimiinta cahdigii nebiga adduunka joogaysay dabalu fiirso xanuunkan iminka adduunka ku fiday ee la sheegayo maba jirabe hadduu jirana waa la arki lahaabe waad aragteenoo sidii dadka loogu celcelinayey ayaan gacmaheennii dhaqaynaa afkiina aan xidhannay qof walba wuxuu ku jiraa digtooni buu ku jiraa wax jirana ma jiraan tusudaama maxaa keenay baa layidhi waa hadalkan badan ee dhegteenna ku dhacdhacaya mar walba lugaha gacmaha maydha markaad hindhisaysaan afka marada saarta 2 mitir dadku ha kala dheeraadaan meelaha zaxmadda buuqa inaan la gelin telefoonadii baa ayaa lagu bologarameeyey tikraar ka badan hadalkaa lagu celceliyey wuxuu keenay qofkii isagoo waxba qabin ba inuu shakiyaba oo haddaad hindhisotana uu ku yidhahdo war xaggaada u jeeso corona jira la yidhi maxaad mid baa yidhi awalba sawniga hindhisoon jiray maa buu yidhi ma imika isbedeshay hindhisadu ma fahamta kalsoonida bini aadamku waa cajiib wixii lagu celceliyo qalbiga uu galayaa asxaabta rasuulka radiyallahu canhum iyo dadkii wanaagsanaa qalbigooda waxa ka dhaadhacday laa ilaaha ila allah muhammadur rasuulullah sallallahu alayhi wasallam
warka ilaahay ayaga ku socday iyo warka nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam dadna dad waxay noqdeen warka ilaahay warka nabiga mooyana war kalaba uu san galaynba ma bagala war kalaba iyaga abu darda masjidka isagoo fadhiyaan inuu yimid oo yiri waran qalkaaga dabba in yaru jiray ka gaad ma gubanay buu ka yiri hadana ku kala u yimid abu darda ma tiid ha aqalkaaga dabba in yaru jiray ka gaad ma gubanayo ku saddexaad ba u yimid sidii asilay ki afraad ba u yimid oo yiri dabkii markuu aqalkaaga u dhawaaday iska baqtiyay abu darda wuxuu ku jawaabay ma taqaanaa قد علمت أن الله لم يكن ليفعل ذلك بولي وأنا إنه لا يقل هيك وضبك يقبض سنين ضبك أقل هيك إنه سنجارين بان أقابل عنه مركز سيد هذين لبض هذين هذا الكل حد ليسو كيف الله يا بدن بيكون هذين مكي أدتك كل حيد أقل هيك مجبني يسكن نقطع مسكدم بي الله ده هاي وأنا إلهي أقل هيك إنه سندبك يقبض سنين وحاسد أو يريد أن يشيء بودي نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام ما كم مغلى يسقى أوله قبلكم مركو دعو يا مركو واجو أوبريو نك دعاء أخرستا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش الكريم ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم وحن كم مغلب لدعاء النبي محمد أو يرينك قلبت فينا مريد هذا صباح دينا مريد هذا حدو قلب دعاء يري إلى واقو كبر يايو مصيبكم مدع على رسولكم يري hadduu waagu markuu baryo uu yiraahdo ilaa uu ka galabaysanay masiiba ma soo gaadho bal fiirso ducadaasi maanta innaka waa noogu qoran tahay kutubta iyo ducooyin fara badan oo nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam laga wariyay laakiin kalsoonida ayaku ay qabeen iyo kalsoonida maanta innaka waan qabna ka warrama isku mid meeta kalsoonidu waa shay cajiib ah shayga qofka bini aadamku uu ictiqaadanahay ilaahay nafcigu u dhaxmariyaa baa leeyahay walow shaygaasi haba noqdo shay beenaba ha noqdee nin reer baadiya yaa magaalo soo galay oo bukooday oo dhakhtarka la geeyay xogaha kaniin baa la soo siiyay kaniinka xumada iyo qandhada dadka reemigu daw afka laga isticmaalo ma yaqaanaan waxay yaqaanaan ay aqeedaysan yihiin wadaad u tago qardhaas u qoro qardhaas waa taqaanaan banu malayn xirsi waa tiraahdaa qardhaas dadna meelahan ku xidhaan oo iska bogsadaan marka kaniinkii la soo siiyay bacyar buu ku xidhay inuu isticmaalay baa la mooday maalintii dambe la wareysto lagu yiri war bal ma la naato dawadii ma qaadatay ها دودي إلهي ويقول شافيه بيقولي وأضع عنايا بلغ ما أركنه عنايا وحلا عناانو ما أركنه بعضي يريد يوحي كو جريبا مرة كو ضوبطو حال كان كو حدو إلهي ويقول شافيه بيقولي والله فيرسو يقينته عجيب قفكو هدو شيء يقينه قاتبا ليل ولو شيء سحابا نقضى شيء أصحين إلهي وكو امتحابا منفعهم بإلهي كوسو دحقلين وحي بن آدمكو أي سمايين أي عددكو ما أنت كو كالسونيهين محانو كو كالسونا وين ورك إلهي ورك النبي قلنو شايقين صلى الله عليه وسلم نبا النبي قوي مدوي لحاليت ولا دبق اللعبة يقنيني الله قسيبك كسيح الله أما إنك لو قلت أعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق لم يضرك بالنبي قولي حداد أورن لحيد كلمة داسي حلقات قلب أيساتي أعوذ بكلمات الله تامات من شر انت أصلا حداد أورن لحيد بالنبي كويري كما برد بيان با أحبك كما قادم با خبر كالنبي محمد ونوشيق عليه الصلاة والسلام خبر لجربي معها
وخبر يقينية يقين ومحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى هل كان ما أنت كل ذا النبي علمه ليه وكالصون داس صدق له الحمد لله دينتي ما أنت وانا قانا صلاة دي واتوكنا قرآنك وانا قرينا صحابة النبي قل مالو دري reer bay dul tageen markaa gaalo ah dacwadii bay gaarsiiyeen oo dacwadii baa laga qaadan waayey markaasay waliba yidhaahdeen war islaami mayno waa hagaagana marti qaadi mayno isku diinba manina maxaa niga marti qaadnaa duqi reerka ugu weynaaba habeenkii masbaqaniina balaaya cuntay markaasaa geed iyo dawo iyo wax walba waa loo raadiyey kolkii dawo loo waayey laga quustay bay siraadeen niman yahow nimankii xalaytoola martiqaadka aan u diidnay muslimiinta ahaa waa kuwa weli meeshii degane bilow yaka dawo laga hel markaasaa loo yimid odaygii noogu da'da weynaa xanuun baan waxbaa balaaya naga cuntay oo waa sankaraad oo naftii baa ka dhacaysay dawo ma haysaa amiirka jamaacadda watay baa ku yidhi haa dawo annaka hayna buu yidhi laakiin dawadaa may nima siinayno ilaa ujuuro aad keentaan asxaabtu way isqabsadeen dawadeed haysaa wuxuu yidhi alqur'aan baan haynaa buu yidhi suuratu alfaatixaan hayaa buu yidhi iyadaa ku filan buu yidhi da in lacag lagii xoola lagu qaato may bannaan tahay haa soo iyakuwa martiqaadkii noomay diidin way noo bannaan tahay buu yidhi may ma bannaan iska daaya khilaafka daaya uu qaboojiyey odaygii baa la dulgeeyey suuraddii faatixaduu ku akhriyey uu iska kacay waxaa la yidhi ninka qur-aanka la dhaqaaqeen maxaa sugaysaa namari wax iga yaabiyey baa maanta ay helay tiri maxaad aragtay cumarkii aad ogeyd cadaawadda uu muslimiinta u qabo oo waxaan arkay maanta dabcay oo jalcay oo xataa noo duceeyey oo halkanuu kuugu yimid ahaa oo muxuu yidhi sidaasuu yidhi oo ma cumar binu khataab inuu islaamaad damacsan tahay buu ka yidhi dameerka odayga khataab baa islaamnimada uga dhowe cumar weligii islaami maayo dameerka raway namari buu ku yidhi yani istiqraab waa la fogaysanaya cumar islaamnimadiisa laakiin maalintuu cumar islaamay islaamka nasri buu u noqday ugu ninka ay saxaabadu u arkayeen ninka ugu cadowsan gaalada ee dhibta ugu weyn muslimiinta u geysanaya wuxuu noqday ninka muslimiinta ugu naxariis badan buu noqday ninka muslimiinta ugu cadaalad fiican buu noqday ninka cahdigiisii cadaaladdu adduunyadoo dhan gaadhay buu noqday ninka iska daa bini aadan xaqooga intuu dhaafay inuu ilaaliyo ayuu odhan jiray faraska iyo dameerka ciraaq ku turanturoonaya dariiqi inaan u hagaajiyaan ka fikirayaa buu yidhi iska daa bini aadankii xaqii bini aadanka intuu daboolay ayuu odhan jiray faraska ciraaq ku turanturoodan anaa qiyaamaha lay weydiine sidaan jidka uu maraya aan ugu hagaajin lahayn ayaan ka fikirayaa buu yidhi webi baa soo fatahay markaasaa cumar loo sheego la yidhi webigii ay badan buu laayuun iyo dameero badan buu laayay uu ooyey cumar binu khataab wuxuu yidhi qiyaamaha anaa lay weydiin buu yidhi xayawaanka webiga ku dhintay oo la odhan doonaa maxaad uga badbaadin weyday naxariista cumar qalbigiisa ku dhalatay eega boqorradii adduunyada haysanaya markii dowladahoogii laga adkaaday dhaqaalaha ay haysteen bay saxaabadu soo qaadeen madiinay keeneen iyadoo baqal lagu wado dahabkii iyo kuraasidii iyo taajkii marka cumar binu khadaab baa yidhi xoolaha intaa la eg ragga ka keenay ciraaq dhinaca iga shishe ee magaalada madiine iigu keenay iyagoon waxba ka qaadan raggaasi waa rag ammaano leh buu ka yidhi waa rag ammaano leh markaa buu yidhi yaa amiira almu'miniin iyaka maaha buu yidhi waa adiga buu yidhi adigaa hantidii ummadda ka dhowrsoonaaday iyakuna markaasay hantidii ummadda iska ilaaliyeen buu ka yidhi hantida ummadda adigu haddaad daaqi lahayd iyakuna way daaqi lahaayeen buu ka yidhi way daaqi lahaayeen dadkaas nebi maxamed calayh salaatu wasalaam dadaalkiisii raggaasaa ku soo baxay iimaan leh oo diin leh oo taqwo leh inaan nafteenna dhisnoon ummadda dhisna laynooga baahan yahay ka warrama dacwadda ka shaqeeya dacwadda u baxa ummadda xagga ilaahan ugu yeedhna waxay ka dhigan tahay dadka in laga shaqeeyo ayaa awlaaya mise dhulka in laga shaqeeyo bali sheega iminka dadka adduunyada joogoo dhan waxay u dadaalayaan dhulka inay ka shaqeeyaan
inay wadooyin hagaajiyaan inay dhakhtarro fiican helaan inay tacliim fiican helaan inay wadooyin fiican helaan inay dawlado fiican helaan in nidaam fiican ay helaan taasay u doonayaan waxaasoo dhan waxaa ka awlaysan in bani aadanka horta laga shaqeeyo oo bani aadanka la islaaxiyo bani aadankuna wax kale kuma islaaxaya bay culimmadu leeyihiin ilaa ummadda horta iimaanka laga dhisa mooyaane yaqiinta dee diyaar ma nahay insha allah yaa bal u diyaaray insha allah waqtigiisa inuu dadaalka diinta ku bixiyo naftiisana islaaxiyo oo ummadana soo islaaxiya u diyaara insha allah dhahada insha allah si fiican u dhahada bushaaro haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyada awlaada iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa hadan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiid nambarada shaashada kaaga muuqda hamoodaan dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra sidaad u seexanaysaan buu nabigu leeyahay kaco ilaahay xasuusta saacadda qiyaamadaba soo dhoweey dadkii magaalada ku noolaa haddii nebi maxamed uu la dhex marayay erayadaas uu lahaa kaco ilaahay xasuusta kaco ilaahay xasuusta suurtii baa dhici doonto qiyaamadii baa dhow oo malagii baa suurta afuufaya aakhirana qofka bini aadamka waxuu ka baqaa waa dunuubtiisa waa dembigaagina waa lagaa dhaafay buu rasuulku yidhi marka allah inoo dembi dhaafo qofku markuu dhintana dhimashada maxaa ku dhex jira su-aashii qabriga ku dhex jirta uu haddaad hindhisotana uu ku yidhahdo war xaggaadda u jeeso corona jira la yidhi maxaad minhaa khalaqnaakum wa fiiha nuciidukum wa minhaa nukhrijukum taaratan ukhra waa kii ilaahay lahaa ciiddaasaan niga abuurnay iyada un baan haddana nigu celini doonaa mar dambana iyada niga soo dhex saari doonaa baa ilaahay yidhi malaga israafiil calayhi salaam maalinkii la abuuray ilaa joogadeenna waxaa la yidhi lugaha intuu la kala baxay foodhinku buuqu afuufayena afkuu gashaday baa la yidhi waxauna sugayaa ilaahay amarkiisa keliya bas waa malaga axaadiista qaarkood ay sheegaysa labadiisa xiribood shimbarka xirib halkaa ka duula ilaa intaa kale wuxuu u duulayaa 70 sannadood qayladiisa oo keliya ayaa khalaa'iqdoo dhan la wada dhimaneen la argagaxayaan waxauna sugayaa un idanka ilaahay goormaa lagu odhan doonaa afuuf daadna isaguna markaasuu foodhinta afuufi doonaa wanufiqa fi الsuuri fasaciqa man fi الsamaawaati waman fi اlأrض ilaa man shaءa allah ثuma nufiqa fiihi أkhraa faida hum qiyaamu yanduruun marka alraajifa waa tan hore weeyaane khalqigoo dhan ka nixinaysa khalaa'iqdoo dhan qulubtooda gelgelaysa haddana waxaa ku xigta buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam tee suurta labaadna waxa weeyaan waa ta bacdiga qiyaamaha khalaa'iqdu ay la soo wada bixi doonaan sideed u seexanaysaan buu nebigu leeyahay kaco ilaahay xasuusta saacadda qiyaamadaba soo dhoweey jaaa almowtu wabima fiihi baa nebigu yihi waxaa kaloo yimiday geeridii dhimashadiina way timiday oo laba qiyaamo ayaa la sheegay qiyaamo weyn iyo qiyaamo yar qiyaamaha weyni waxa weeyaan waa saacadda suurta weeyaan qiyaamaha yarna waxa weeyaan waa ajashiisa qof walba markay ku timaado qiyaamihiisii baa kacay markaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam oo madiinata almunawara jooga oo magaalada madiinana asxaabu muxamed oo dhan ay wada joogaan haddii nebi maxamed uu u baahday inuu dhex jowlayo yidhahdo dadoo kaco ilaahay xasuusta kaco ilaahay xasuusta kaco ilaahay xasuusta uu saacadda qiyaamada iyo suurta iyo geerida iyo nolosha dambe aakhirada u xasuusiyey haddii magaaladii madiina zamankii nebiga dadkii muuminiinta ahaayada ku noolaa ay mudaakaradaas iyo baraarujinta ay ka maarmi waayeen innakoo zamankan maanta joognana ka warrama intayn u baahannahay markaas in mar walba ilaahay layna xasuusiyo zamankeennan qafladda ayaa badan jahliga ayaa badan macaasida ayaa badan fitanta ayaa badatay ya
isyaanka ayaa bato meel walba ilaahay baa lagu caasinayaa zamankoogiina waxay ahayd magaalada madiina magaalo dadka ku nool ay ilaahay amarkiisa u wada hoggaansameen oo sunnadii nebi maxamed ay ku wada dhaqmayaan sala allahu calayh wasalam dadkii magaalada ku noolaa haddii nebi maxamed uu la dhex marayay erayadaas uu lahaa kacoo ilaahay xasuusta suurtii baa dhici doonto qiyaamadii baa dhow oo malaggii baa suurta afuufaaya oo haddana khalqigoo dhan baa argagaxi doona haddana khalqigoo dhan baa wada dhimani doona qofku markuu dhintana dhimashada maxaa ku dhex jira su-aashii qabrigaa ku dhex jirta noloshii qabrigaa ku jirta cadaabulqabrigii baa ka dambeeya haddana jidkii siraad baa ku xiga bankii qiyaamaha haddana loo soo bixi doonaa ilaahay baa lays hortaagi doonaa taasaa markaa nebigeennu dadka ku baraarujinayay sal alla alay wasalam saxaabiga ubay ibnu kacab baa hadloo yidhi yaa rasuul allah markaan ilaahay anigu aan baryaayo salligaaga haddaan ducadayda afar u qaybiyo qayb aan ka dhiga bal ka waran markaa buu nebigu yihi waa khayr haddaad ka ziyaadisaasaa kaaga khayr badan buu nebigu ku yidhi haddaad ka ziyaadisana waa khayrun markaa buu yidhi ka waran haddii aan ka dhiga salligaaga kala badh oo ducadii aan ducaysanayen ilaahay aan baryaayey kala badh haddaan adiga kugu salliyana bal ka waran inta kalena ana xaajadeeda ilaahay aan weydiisto markaa buu nebigu yihi waa khayr haddaad ka sii ziyaadisana waa khayr buu nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam haddana markaa buu yihi ducadaydii markaan u qaybiyey 3 qaybood 2 qayboodna adigaan kugu sallin qaybna maaragtaane anigana baahideedan ilaahay u sheeganteeda ka waran markaa buu nebigu yihi waa khayr haddaad ka sii ziyaadisana waa khayrun baa nebigu yihi sal alla alay wasalam markaa buu yihi yaa rasuul allah haddii marba salligaagii haddii la badiyaba khayrun lasii dhexgalaayo baahidaydii dhannayd een ilaahay u sheeganayey waxaan ku soo koobayaa buu yihi salligaagaba adiguma kugu sallinba markaa buu nebigu yihi idan tukfaa hamuka wayukfaru laka danbuka buu yihi haddaad aniga igu sollidid hamigaagi wixii adduunka aada muraad ka lahayd ee ku walwalgelinayeed ku haminaysay waad heshay dembigaagina waa lagu dhaafay buu nebigu yihi calayh isalaatu wasalaam xadiis kale waa kii nebigu lahaa man shagalahu alqur'aanu can dikri ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه بالنبي عليه الصلاة والسلام لك قرآن أخرسك كن مشغولة بريدي ذكرك كم مشغولة قرآن كقراءة ديسة إلهي وكيلها كوا إبريا يوحن إياك آنسين وحكفل لبضم نساق سياب إلهي لكاس qur-aanka u akhrinaya soo maa qur-aankaa u akhrinaya baahidiisa lagu daboolayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam salligiisii buu badiyey soo maaha muraadkii adduunyada lahaayoo dhan baa ilaahay u daboolaya xaajadeenna ayaa dabooli kara ilaahay baa dabooli kara laakiin taasi yaqiin bay u baahan tahay kalsooni inaan yaqiinsanaa loo baahan yahay saxaabada rasuulku khabarka nebigu u sheego yaqiin bay u qaadanayeen haddaad ducadaadii dhannayd halkaa intood iska dhigto salligayga unaad ku soo koobta buu nebigu ku yidhi wixii adduunkan had iyo jeer mar walba aad ku haminaysa inaad hesho waad hesho waa lagu siiyey buu nebigu ku yidhi aakhirana qofka bini aadamka waxau ka baqaa waa dunuubtiisa waa dembigaagina waa lagaa dhaafay buu rasuulku yidhi marka allah inoo dembi dhaafo waa labada shay ee qofku adduunka uu dhib leeyahay adduunkanna wuxuu u leeyahay hami aakhirana waxau qofku maaragtaane uu leeyahay waa dembi aakhiro waxa keliya qofku ka baqa waa dembigiisa adduunkana qofku wuxuu qalbigiisa ku hayaa xaajo uu leeyahay oo cid u qumisa ayuu raadinayaa dhib haysata dhibtaana cid ka fayduu rabaa qofkaasi nin walba dhib baa haysata maanta nin walba xaajo ayuu leeyahay nin la baahi maaha anigu baahi ii gaar aan leeyahay kan baahi gaar uu leeyahay aduu baahi gaar aad leedahay laakiin ka baahida nin walba ku jirta oge ka warhaya waayo ilaahay baa baahidaada ku dabooli markaas marka ilaahay taacadiisa waxaan u baahanay inaan ku qaadanay yaqiin waana farqiga u dhaxeeya muslimiinta maanta adduunyada joogta baa la yidhi iyo muslimiinta cahdiga nebiga adduunka joogaysay dabalu fiirso xanuunkan iminka adduunka ku fiday ee la sheegayo
ما بجربه دو جرنا ولا أركي لهابه واد أركتينه سيدي دتك لوجو علينا أيان قعمهني لقينا أفكينا عن حرني قف والبوح كجرا دكتوري بكجرا واحد جرنا مجران تصدق ما حاكينا يبقى الليلي وهذا الكم بدن نكتنا كون عدايا مر والبا لوها قعمها ميدا markaad hindhisaysaan afka marada saarta 2 mitir dadku ha kala dheeraadaan meelaha zaxmada buuqa inaan la gelin telefoonadii baa lagu bologaraamay tikraar ka badan hadalka lagu celceliyay wuxuu keenay qofkii isagoo waxba qabin baa inuu shakiyaba oo haddaad hindhisotana uu kulaado war xaggaad u jeeso corona jira leeyahay maxad mid baa awal ma soo nagin hindhiso jiray ma buu yiri ma ima kees bedeshay hindhisadu ما فهمت كالسونة بني آدم هو عجيب وحي لقوع العلي قلبك وقليا أصحاب رسولك رضي الله عنهم يددك ونكسنا قلبك وحكر دعدي لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورك إلهي وإياك كو سعودي ورك النبي محمد صلى الله عليه وسلم دادنا داد وحين نقدين ورك إلهي ورك النبي قام ويانا ورك لبا أوسن قلين ما بقى ورك لبا إياك أبو درداء مسكيت كسقوا فرديان إنه يبدور ورقل كاجي ضبا إن يروجري كعوك كجان ما جوبنا يبو كيدي هذا أنا كوكلا أوي مد أبو درداء متيد ها أقل كاجي ضبا